بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu maa'ida. waxaa noogu soo dembaysay in badan oo ahlu kitaabka in badan oo ayaga ka mid ah inay ka weli yeelanayaan kuwa kaafiriinta ah. waxaa baas lahaaday wax allaala waxay nafafyaalkoodu u hormarinaysa buu dhahay ilaahay, oo ah in naftoodu alla u carooday, cadaabkana ay ku waarayaan hadday ahaan lahaayeen kuwo ilaahay rumaysan, nebi moxamed rumaysan iyo kitaabkii lagu soo dejiyeyba. matakhaduuhum wliyaa, kuwaa gaalaa xidhiir kama samaysan lahayn, walaakina kahiiran minhum faasiquun. in badan oo ka mid ahaase falaaga ah. latajidanna waad heli oo waxaad helaysaa ashadda annaasi, dadka kuwa ugu daran cadaawatan cadaawanima liladiina kuwii aamanuu mu'miniinta la cadaawaysto, alyahuuda yahuuddu inay yihiin, iyo waaladiina kuwii ashrakuu shariig yeelay, waaladiina ashrakuu iyo kuwii ilaahay u shariig yeelay subxaanahu wa tacaala. walatajidanna waxaad heli aqrabahum kooda ugu dhow mawaddatan xagga kalgacaylka liladiina kuwii la jeclaada aamanuu rumeeyeyna, aladiina kuwii inay yihiin qaaluu yidhi innaa anagu nasaaraannu nahay kuwii yidhi ayaad arkaysaa inay xagga mawaddada iyo jacaylka dadka iimaanka leh la jeclaado ay markaa yihiin. daalika arrintaana waxay tahay bianna minhum waxaa ka mid ah kuwa nasaara qisiisiina, niman culimo ah, wa ruhbaanan iyo suufiyaal, niman ruhbaan ahoo cibaado aad u qabta, iyo niman qisiisiin ahoo cilmi u saaxiib ahoo ilaahayna aad u caabuda, cilmi siyaado ahna leh ayaa markaa ka mid ah. iyo wa annahum ayagu laa yastakbiruuna, inaysan iskibrisiinayn, inaysan ilaahay diintiisa iska weynaysiinaynin. mu'miniin iyo dad iimaan leh dadka ugu nacayb badan ee adduunka jooga waa yuhuuddu. sidaa darteed ayaa in badan waxaad arkaysaa xataa markaad caalamka fiiriso, inta badan ee dadka islaamka soo raaca ee maalin kasta aad maqlaysa way soo islaameen, nasaaray u badan yihiin. amaa yuhuuddu waa dhif iyo naadir ama maba la helaba. sidaa darteed buu ilaah leeyahay latajidanna ashadda annaasi, waxaad arki oo aad helaysaa oo in badan aad helaysaan ashadda annaasi, dadka kuwa ugu daran cadaawatan cadaawannimo, liladiina kuwii aamanuu rumeeyey la cadaawaysta alyahuuda inay yihiin, iyo waaladiina ashrakuu kuwii ilaahay u shariig yeelay. walatajidanna waxaad heli aqrabahum kuwooda ugu dhow mu'miniinta mawaddatan xagga kalgacaylka liladiina kuwii aamanuu ilaahay rumeeyey la jeclaado, mawaddo loo qaada aladiina inay yihiin kuwii qaaluu yidhi inna anagu nasaaraannu nahay. daalika arrintaana bianna minhum waxaa ka mid ah ayaga qisiisiina, culimo, wa ruhbaanan iyo ruhbaan iyo odayaal, niman ruhbaan ahoo akhyaar ah, iyo wa annahum ayagu laa yastakbiruuna, inaysan isweynaysiinaynin. waad aragtay najaashi habka fiican uu u soo dhoweeyey muslimiinta, kibir ma laha, isqaadqaad ma laha. asaga mar allaala markuu jacfar qur'aanka ku akhriyey wuu ooyey ilaa garkiisii qoyey. nimankii masaaxiifta haayee mtaqaanaa bataariqadiisa hisjoogayaashiisii way ooyeen ilaa masaaxiiftoodii ay markaa qoyday. waidaa haddii samicuu ay maqlaan maa unsila wixii la dejiyey ila arasuuli rasuulka xaggiisa loo soo dejiyeyna, taraa waxaad arkaysaa acyunahum indhahoodoo tafiidu ay ka da'aysay ka daadanaysa min addamci ilin. way ooynayaan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. rasuulka wixii lagu soo dejiye mar allaala markay arkaan, rasuulka sala allahu calayhi wasalam wixii lagu soo dejiye mar allaala markay maqlaan dheh, taraa acyunahum. waidaa samicuu
markay maqlaan maa unsila wixii la dejiyey ila arasuuli rasuulka xaggiisa loo soo dejiyey taraa waxaad arki acyunahum indhahooda oo tafiidu ay ka daadanayso ay ka da'aysa min addamci ilin mimaa carafuu garashadii iyo kii ay garteen ah min alxaqi xaqa waatuu najaashi yidhi wallaahi waxaan uu nebigiina la yimid iyo wixii ciise uu la yimid hal kimshaad iyo hal misbaax ama hal dariishad keliya iyo markaa ka yimid inay ka soo baxeen mimaa carafuu min alxaqi yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa rabbigeeniyow aamanaa waan rumaynay ee faktubnaa naqor maca ashaahidiina nimanka shaahidiinta micigooda ilaahayow nagu qor bay leeyihiin kuwa marag furaya ummatu muxamed ay ka mid yihiin kuwa micigooda nagu qor yaquuluuna xaalo ay odhanayaan rabbanaa rabbigeeniyow aamanaa waan rumaynay ee faktubnaa naqor maca ashaahidiina dadka shaahidiintaee marag furaya micigooda nagu qor wamaa lanaa maxaa xaalkeennu yahay maxaa noo sugnaadoo laa nu'minu aanan u rumaynaynin waan rumaynaynaaye billaahi ilaahay iyo wamaa jaa'anaa wixii noo yimid oo min alxaqi xaqa xaggiisaa wanatmacu waxaan damac ka qabnaa oon rajaynaynaa oon damcaynaa an yudkhilanaa inuuna geliyo rabbunaa rabbigeen maca alqowmi alsaalixiina qoomka saalixiintaee suusuuban micigooda inuu ilaahayna geliyo subxaana wa tacaala maxaa xaalkeenu yahay bay leeyihiin nimankii qisiisiintii ruhbaantaana la kala hadlayaa weli wamaa lanaa maxaa xaalkeenu yahay oo noo sugnaadoo laa nu'minu aanan u rumaynaynin macnaha waan rumaynaynaa billaahi ilaahay iyo wamaa kii jaa'anaa noo yimid oo min alxaqi waa qur'aankii wanatmacu waxaannu damcaynaa oon damac ka qabnaa an yudkhilanaa inuuna geliyo rabbunaa rabbigeen maca alqowmi alsaalixiina qoomka saalixiintaee suusuuban micigooda fa afaabahum allaahu ilaahay wuu hawaabiyey ilaahay wuxuu kaga abaalmariyey bimaa qaaluu wixii ay dhaheen sababtii jannaatin jannooyin oo tajrii ay dareerayso ama ay soconayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa gudaheeda wadaalika arrintaana jazaa'u almuxsiniin waa muxsiniinta abaalkooda buu yidhi ilaa subxaanahu wa tacaala hadalkaa ay dhaheen qowlkaa ay ku qowleen qalbigiina way ka rumeeyeen iimaankii afkiina way ka caddaysteen fa afaabahum allaahu ilaahay kuwaa wuxuu ku hawaabiyey bimaa qaaluu hadalkaa ay ku hadleen sababtii jannaatin jannooyin oo tajrii ay dareeraysa min taxtihaa xaggeeda hoose alanhaaru webiyaalo khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa gudaheeda jannooyinka wadaalika arrintaana waa jazaa'u almuxsiniina muxsiniinta jasahoodii abaalkooda waaye waaladiina kuwii kafaruu kufriyey wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkiina beeniyey ulaa'ika kuwaana asxaabu aljaxiimi naarta jaxiima asxaabteeda waaye buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala inta kufrisay shirki la timid towxiid ku kufrisay haddana wakadabuu biaayaatina aayaadkeena beeniyey oo inkiray ulaa'ika kuwaasi asxaabu aljaxiimi naarta jaxiima asxaabteeda waaye yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah rumeeyayow laa tuxarimuu ha iska xaaraantinimayninoo ha iska mamnuucina tayibaati maa shaykan ugu fiicfiican oo wixii axalla allaahu ilaahay uu idiin xalaaleeyey lakum adinka walaa tactaduu hana xadgudbina ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbaya ilaahay ma jeclee ha xadgudbina 3 nin yaa guriga rasuul ka timid sala allahu calayhi wasalam waxay su'aaleen baa la yidhi camallada rasuulka uu qabto waa looga warramay waaba sidii ayagoo isyaraystay mid wuxuu dhahay war xaggeen ku jirnaa haddii nebi moxamed saa yahay mid intuu xagga u booday buu yidhi aniga maalin walba waan soomayaa weligayna afuri maayo midna wuxuu yidhi anigana habeen walba waan tukanaa mana seexanaayo
kii saddexaadna wuxuu yidhi anigana dumarka guurkoodaan ka fogaanayaa mana guursanayo. ma idinkaa dadkiisaa yidhi buu dhahay nebiga. haabay dhaheen yaa rasuula allah, mana ula jeedin ilaa khayr meehee wax kale. dhegaysta buu yidhi, anaa idinku cabsi badan, anaa ilaahay idinkugu aqoonsho badan, anaa ah midka ilaahay idinkugu dhow. waan soomaa, waana cunaa, waa hurdaa, waana tukadaa, dumarkana waan guursadaa. qof allaala qofkii sunnadayda ka tagana iga mid maahan buu dhahay sala allahu calayh wasalam. waxay tilmaamaysaa waxa tayibaadka ah, guurka, cunitaanka, hurdada, waxyaabaha lamidkii alla noo xalaaleeyey inaan layska xaaraantinimaynin. qaalana waxay dhaheen geela hilibkiisii caanihiisaan ka fogaanaynaa saysan shahwadu noogu badanin oo hadhow aan diinta uga mashquulin. wax allaala waxa ilaahay noo banneeyey in la isticmaalaa fiican. yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah rumeeyayow laa tuxarimuu, ha iska xaaraantinimaynina tayibaati maa shaykan ugu fiicfiican axalla allaahu alla idiin banneeyow idiin xalaaleeyey lakum adinka. walaa tactaduu'un, ha xadgudbine. ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbee. wakuluu cuna mimaa kii xaggii wax ka cuna rasaqakum allaahu alla uu idinku quudiyuu idinku arsuqay xalaalan xalaal asagoo ah tayiban oo tiib ahoo fiican. waxa tiibkaa waa shay xalaal ah, xalaalkuna waa tiib. wattaquu allaha ilaahay ka cabsada alladii allahaasoo antum adinku bihi asaga mu'minuuna aatiin kuwa markaa rumaysan. ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala. ilaaha aad rumaysan tihiin ee cuna waxaad ilaahay idinku arsuqay xalaalan tayiba. shayga inuu xalaalaya waxaad ku fahmaysaa tiib waayo naftaadu way ku soconaysaa. hadda neef dhintay haddii qashinqubka laga soo jiido annagoo arkeenna la qalo, hilibkiisa la googooyo, hilibku waa hilib laakiin ma cuni karno, naguma soconaayo. laakiin neef inta la soo iibiyey asagoo qaylinayo dhegiisu dhaadheer yihiin, meesha marka lagu bireeyey bismillaahi allaahu akbar la dhaho, dhiigga ugu horreeya saa uga soo daatou dhiiggu ka baxo, naftiisu ay dhammaatay xasilo, inta la harag fiiqo, hilbaha la googooyo, beerkana loo kariyo, saanu cunayna siba ula jirtaa. waxaad ka fahmaysaa shayga xalaasha waa shay tiib ah. waxa xaaraamtaa tiib ma aha, ma wanaagsana. idan wakuluu cuna mima rasaqakum allah wixii alla idinku arsuqay xalaalan xalaal xaal uu yahay tayiban oo tiib ahoo fiican. wattaquu allaha ilaahayna ka cabsada alladii allihii antum adinka bihi asaga mu'minuuna aatiin kuwa markaa rumaysan. laa yu'aakhidukum allahu ilaahay idiin qaban maaya billaqwi laqwiga oo fii aymaanikum dhaaryaalkiina dhex ahaaday. waxa iska dhahdhahaha ah ee carabka ku dareersada. caaisha waxay tiri laqwiga ee dhaarta waxaa loola jeedaa haa wallaahi, maya wallaahi, waa ku dilaa wallaahi, ku raaci maayo, macnaha waxyaabaha carabka ku soo dardareera kaa ilaahay nooma qabanayo. laa yu'aakhidukum allahu ilaahay idiin qaban maaya billaqwi laqwiga iyo waxyaabaha cayaarta ah, laqwiga iyo waxyaabaha iska dhahdhaha ah oo fii aymaanikum dhaararkiina dhex ahaaday. laakiinse yu'aakhidukum ilaahay wuxuu idin qabanayaa bimaa caqadtum alaymaana, bimaa shaygii caqadtum aad gunudaan alaymaanee dhaaryaalka ah. wixii dhaar ahood caqidaan ood gunudaanood qalbiga ku qabataan kaasaa laydin qaban, kaasaa kafaara gud laga rabaa. fa kafaaratuhu kafaara gudkiisa waxyaabaha la gunudo ee dhaarta dhabta ahee qalbiga ka soo fushaa, haddii qofku inta uu dhaarto wixii uu ka dhaartayna uu sameeyo ou dhaartii jebiyo, kafaara gud baa laga rabaa. fa kafaaratuhu kafaara gudkiisu itcaamu 10 masaakiina waa quudin la quudiyo 10 masaakiin ah. maxaa la siinayaa? min awsati maa shaykan ugu dhexdhexaydsanoo tudcimuuna aad quudinaysaanoo laga cuno ahliikum eheladiina. gurigiinna waxa laga cunood ehelkiinna ku quudisaan raashinka midkiisa dhexdhexaadka ah. 3 raashin matal tusaale ka soo qaad. inta badan guryaha soor baa laga cunaa iyo baasto iyo beriis, kee qaali ah keena raqiis ah, keena dhexdhexaad ah. soortu waa raqiis marka hore, baastaduna waa qaali, beriiskuna waa dhexdhexaad. saasaa macnaha loo bixinayaa. min awsati maa tudcimuuna waxaad ku quudisaan oo laga quuto midka uga dhexdhexaysanoo dhexdhexaadkoon qaaligana ahayn.
raqiiskana ahayn ahliikum eheladiina aw kiswatuhum ama marashayntooda 10 masaakiin baad marasho siinaysaa shaar iyo macawis aw taxriiru raqabatin ama qoor la fakiyo waa addoon la xoreeye faman lam yajid qofkii aan helin fasiyaamu ay facalayhi siyaamu korkiisa soon baa ahaaday 3 ayaamin 3 maalmood uu soomo daalika arrintaa kafaaratu aymaanikum waa dhaariyaalkiinna ka kafaara gudkooda idaa xalaftum haddaad dhaarataan oo wixii aad ka dhaarateen ay idinla qunnaata inaad samaysaan amase aad dhaartii jebisaan taasaa kafaara gud idiin ahoo magaca ilaahay wax sahlan ma aha subxaanahu wa tacaala marka mar allaala marka aad dhaarataan waa kafaara gudkii dhaartiinna daalika arrintaa kafaaratu aymaanikum waa dhaariyaalkiinna kafaara gudkeeda idaa xalaftum haddii aad dhaarataan waxfaduu ilaaliya laakiin aymaanakum dhaaryaalkiina marka horeba dhaarta ilaaliya haddaad dhaarataanna dhaarta ilaaliya dhaarta ha jebinina in badan laakiin waxa aad ka dhaaratay wax fiican hadday yihiin inaad dhaarta jebisaa fiican waxa fiicanna aad samayso aadna ka kafaaro gudato cidda deriskaad ka dhaaratay inaadanba la hadlinba aynan kaa adeegan adnaadan ka adeegan waa akhlaaq xumo derisku aad buu xaq fiican u leeyahay xaaladda markay meeshaa tahay jebi dhaarta kafaaro gud bay leedahay wanaaggana sameey qofka inuu dhaartiisa ku madax adkaado waxay ka khayr badan tahay inuu dhaartana jebiyo kafaaro gudna la yimaado idan shay kasta oo khayr ah oo aad ka dhaarato hadhiin ani waa dhaartay warbax utag walaalkaa soo sal may waan dhaartay war walaashaa way xanuunsan tahay soo sal may waan dhaartay dhaartayayna noqon wax khayrka kaa manciya saan baqara ku soo marnayba xaaladdaa waxay tilmaamaysaa marka in aad loo dadaalo waxfaduu aymaanakum dhaaryaalkiina ilaaliya kadaalika saasuu yubayinu allaahu ilaahay uu idinkugu caddaynayaa lakum adinka aayaadkiisa lacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukrisaane inaad ilaahay u mahad celisaan baad mudan tihiin yaa ayuha aladiina kubi aamanuu ilaah rumeeyayow inama alkhamru khamrada iyo walmaysiru qamaarka iyo walansaabu ansaabtii nasabyaalka waa asnaamtee iyo walaslaamu aslaamta iyo gamuunnada lagu khayr iyo shar ogaado dhammaan rijsun waa qurun oo min camali shaytaani shaytaanka camalkiisa ka mid ahee fajtanibuuhu ka fogaada lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaan baad mudan tihiin buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka iimaanka leh ee rabbi rumeeyayow khamrada qamaarka ansaabta iyo sanamiyada aslaamta iyo qoryaha dhammaan waa rijsi qurun ahoo shaydaan camalkiisa ka mid ah idan fajtanibuuhu ka fogaada lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaani inaad liibaantiin baad mudan tihiinna waxaa iska daaya khamradu saan soo tilmaannay maraaxil fara badan bay soo martay degdeg iyo isla markii lama xaaraantinimaynin aayado badan oo aan soo marnay ka mid tahay tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasanan waxaa farta lagu fiiqay wax wanaagsan inaysan ahayn wayas'aluunaka cani alkhamri waalmaysir qul fiihimaa iثmun kabiirun wamanaaficun linnaasi wa iثmuhumaa akbaru min nafcihimaa inaysan weli fiicnin baa la tilmaamayaa laakiin si cada looma xaaraantinimaynin yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الصalaata waantum sukaaraa xataa taclamuu maa taquuluuna walaa junuban ilaa caabirii sabiil xataa takhtasiluu weli waxaa la tilmaamayaa wax xun inay tahay mar walbay aayad khamre soo degtana cumar wuxuu dhihi jiray ilaahayo shafi iyo bayaan cad noo cadday ilaa aayaddan ay soo degtay yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaahay rumeeyayow inama alkhamru khamrada waalmaysiru qamaarka waalansaabu ansaabta iyo nasabyaalka ama sanamyada iyo waalaslaamu gamuunnadu dhammaanba rijsun waa qurun oo min camali shaytaan shaytaan camalkiisa ka mid ahee fajtanibuuhu ka fogaada lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaani aayaddaa markay soo degaysay maxaa la fadhiya guriga abi talxa saa darteed anas ibni maalik waan shushubahayay buu yidhi waa la cabaay ashuumay noogu jireen
fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun. aayaddii markay dadka soo gaartay waa la wada afgembiyey, ashuumadii wixii ku jiraa la wada daadiyey. magaalada madiina waxaad mooddaa daad soconayo khamriya maalinta sida loogu hoggaansamay. innamaa yuriidu shaytaanu, shaytaanku wuxuu doonayaa an yuuqica inuu ku rido baynakum dhexdiina alcadaawata cadaawanimo iyo waalbaqdaa isku caroosho fi lkhamri, khamrada iyo walmaysiri qamaarka. wayasudakum inuu idinkaga jeediyo can dikri illaahi, ilaahay dikrigiisii, wa can isalaati, salaada xaggeedii. fahal antum sawma tihiin muntahuuna kuwa ka haraya? miyaadan ka harayn? intahaynaa, wallahi waa ka haraynaa buu dhahay cumar. alla maxaan uga hari weynay? rabbiyo waannu ka haraynaa. shaytaan wuxuu doonayaa an yuuqica baynakum, inuu dhexdiina ka abuuro ee uu ku dhex rido, ka dhex abuuro alcadaawata waalbaqdaa, cadaawanimo isku caroosho fi lkhamri waalmaysir. khamrada markuu soo cabcay buu kuu bilaabayaa, maantoo dhan kama ammaan helaysid, waa cadaabo iyo dagaal. maysarku waa la mid, markuu kaa helo, markaad ka hesho xataa inaad baxda ma rabo. mid baasuu u dhiganahay, shaatigiisii dhigtay, wax kasta buu dhigtay, markii ugu dambaysay xaaskiisii buu dhigtay, tii baa laga helay. xaaladda ugu dhibaatada badan waay walmaysar. wayasudakum inuu idinka jeediyo can dikri illaahi, ilaahay dikrigiisa, wa can isalaati, iyo salaadee. fahal antum muntahuuna kuwa haraya sooma ihidiin? miyaadan harayn buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala, miyaadan ka joogsanaynin? haa waaye, macnaha waannu ka istaagaynaa. wa atiicu allaha, ilaahay maqla oo ateeca, wa atiicu rasuula, rasuulkana ateeca oo maqla. waxdaruu, digtoonaada, fain tawallaytum, haddii aad jeesataan oo amarka alle iyo adeecitaanka alle iyo ka nebiga aad ka jeesataan, faclamuu ogaada annamaa calaa rasuulina, rasuulkeenna dushiisa waxaa uun ahaaday albalaaqu, gaarsiin, almubiinu ee cade. haddaad jeesataanood amarkaad diidaan, haddaad jeesataanood alla adeeci weysaan, haddaad jeesataanood rasuul adeeci weysaan, ogaada rasuulkayaga dushiisa waxaa ahaaday balaaquun. wa atiicu allaha, ilaahay maqla oo ateeca. wa atiicu rasuula, rasuulkana ateeca oo maqla. waxdaruu, digtoonaada buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. rasuulka maqla oo ateeca, amarkiisa qaata oo fuliya. nebigana saasoo kale. fain tawallaytum, haddii aad jeesataanna, faclamuu, waxaad ogaataan annamaa calaa rasuulina, rasuulkayaga dushiisa waxaa uun ahaaday albalaaqu, gaarsiin. gaarsiin baa nebiga korkiisa ahaatay, gaarsiintaasoo almubiinun cad. laysa cala aladiina aamanuu, aayaddani waxay ku soo degtay intaan khamrada la xaaraantinimaynin. dad baa dhintay, khamradii way cabi jireen. ayagoo khamrada cabahaya intaan aayadihii khamrada lagu xaaraantinimaynaya aysan soo gaarin, ma soo gaarin, macnaha way dhinteen, jasadkooda ay way ku jirtay dhinteen. kuwaasee la yeelayaa? ilaahay ma u qabsanayaa kuwa? aayaddan baa soo degtay markii rasuulka su'aashaa la weydiiyey. laysa ma ahaanin cala aladiina kuwii korkooda aamanuu rumeeyey, wa camiluu camal qabtay alsaalixaati, camallada fiicfiican, junaaxun dembi kuma aha fii maa tacimuu, wixii ay quuteen, macnaa waxay cabeenoo qamro ah. idaa mattaqow, haddii ay cabsadaan oo wa aamanuu, idaa mattaqow, haddii ay baqeen oo wa aamanuu ay rumeeyeen oo wa camiluu camal ay sameeyeen alsaalixaati fiicfiican, humma attaqow, kadibna ay baqeen oo wa aamanuu ay rumeeyeen, humma attaqow, ka bacdinay cabsadeen oo wa axsanuu ay wanaag faleen. kuwaa wax loo haysta ma jiro, waayo aayaddii khamre lagu xaaraantinimaynayey ma soo degin intay joogeen. hadday joogi lahaayeen way ka hari lahaayeen. sidaa darteed bay iimaan iyo alla ka cabsi, iimaan iyo alla ka cabsi bay ku jireen. humma attaqow wa axsanuu, haddana baqay oo ilaahay wanaag sameeyey. wallaahu, ilaahayna yuxibbu almuxsiniina, muxsiniinta alla jecel waaye subxaanahu wa tacaala. yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah rumeeyayo, layabluwannakum, wuxuu idinku imtixaami allaahu ilaahay bishayin, shay ayuu idinku imtixaamayaa oo min asaydi, ugaarta ka mid ah, tanaaluhu ay gaaraysa aydiikum, gacmihiinii, wa rimaaxukum, warmihiina, gacmihiina iyo warmihiinaa gaarahaya. liyaclama allaahu, ilaahay inuu ogaado saa u yeelay man yakhaafuhu,
qofka ka cabsanaya bilghaybi maqnaan uga cabsanaya ilaahay oo qayb ahoon weligii la arkin qofka ka baqaya faman ictadaa qofkii xadgudba bacda daalika markaa kadib falahu cadaabun cadaab baa u sugnaaday aliimun ee xanuun badan. ugaarta in la ugaarsadaa mamnuuca marka xaramka la joogo ama aad xaaji tahay, laakiin imtixaan baa lagugu samaynayaa. labadaada lugood hoostiiday ka baxaysaa. markaad saa ugu tuurto warankaaga wuu gaarayaa, laakiin waa kaa mamnuuc. xilli ay kuu bannaan tahay inaad ugaarsataad maantao dhan ceersanaysaa mana qaban kartid ama ilba saari maysid. ilaah waa idin imtixaamaya subxaana wa tacaala, yaa ayuha aladiina kubii aamanuu ilaah rumeeyeyow layabluwannakum wuu idin imtixaamayaa allaahu ilaahay bishayin shay buu idinku imtixaami oo min asaydi ugaarta ka mid ah xilli ay mamnuuc idinka tahay. tanaaluhu ay gaarayso aydiikum gacmihiina, saa haddaad u laaddo oo saa gacanta ugu taagto waad qaban kartaa, laakiin waa kaa mamnuuc xilliga. wa rimaaxukum iyo warmihiina haddaad ku tuurto way ku dhacaysaa. ilaah muxuu saa u yeelan liyaclama allaahu ilaahay inuu ogaado man yakhaafuhu qofka baqahaya bilqaybi qaybnimo oga baqaaya. alla gacan bay kugu jirtaaye bal ka faa'iidaysa midka dhahaya iyo midka dhahaya xataa hadday gacantaada soo gasha dhaaf, ilaahay subxaana wa tacaala wuu kuu jeedaaye. man yakhaafuhu bilghayb faman ictadaa qofkii xadgudba bacda daalika markaa kadib falahu cadaabun cadaab buu leeyahay, cadaabkaasoo aliimun xanuun badan. yaa ayuha aladiina kubii aamanuu alla rumeeyayow laa taqtuluu ha dilina assayda ugaadha ha dilina wa antum xurumun idinkoo xarman, idinkoo xaajiyaala ama xaj u socda oo xarmaday ama cumro u socdoo xarman ugaar ha dilina. waman qatalahu qofkii dila oo minkum adinka idinka mid ah mutacammidan si ula kac oo kibira u dila wixii qada ku dhaca waa gooni. fajazaa'un abaalkiisu midlu maa oo kala waaye maalkii qatala uu dilay oo min annacami nimcoolooyinka ka mid ah. wixii uu dilay wax la mid ah ayuu bixinaya oo laga qaadayaa. yaxkumu bihi waxaa xakumaya mkaa dawaa cadlin laba nin oo cadaalad u saaxiiboo minkum adinka idinka mid ah. hadiyan hadyi xaal ay tahay baaliqa alkacbati kacbada gaaraysa. maxaa laga wadaa? wixii aad dishay laba nin baa xukumaysa. waxaad dishay arnab bakayle maxaa u dhigma? wixii u dhigmoo kale geel waxaad dishay goronyo maxaa u dhigmoo geel soo maaha. dameer farow baad dishay maxaa u dhigmi kara lo soo maaha. laba nin baa xukumaysa waxay kugu xukmiyaan oo xoolaad bixinaysaa nimcoolayda ah. waana hadyi oo baaliqa alkacbati kacbada gaaraysa, fuqarada xaramka iska leh. aw kafaaratun ama kafaara gud oo طacaamu masaakiin raashinkooda ah. wixii geela ah ee lagugu xukmiyey ayaad weysay, amase waa la qiimaynayaa. geela haddii la qala meeqo qofaa cuni lahayd? 20 qofood iska dhe ama 30 maalmood baad soomaysaa. wax u dhigma macnaha aw kafaaratun ama kafaara gud waaye طacaamu masaakiin طacaamkooda ah. aw cadlu daalika ama wax u dhigma siyaaman oo soon ah. macnaha intii qofood oo cuni lahayd aa la tirinayaa, intaasaad soomaysaa. neefkii haddii aad bixiso intii qofood aad cuni lahayd wax la mid ahoo masaakiin ah yaad cunto siin, ama in la midaad soomaysaa. liyaduuqa inuu dhadhamiyaa saa loo yeelay qofka wabaala amrihi amarkiisa cirib xumidiisa. cafa allaahu ilaahay wuu saamaxay camaa salafa wixii tegey. waman caada qofkiisa dib ugu laabta fayantaqimu allaahu ilaahay wuu ka aargudanayaa minhu xaggiisa. wallaahu ilaahayna casiizun waa alla casiis ahoo amarkiisa qaalib yahay. duintiqaamin aargudashana u saaxiib ah. uxilla waxaa laydiin xalaaleeyey lakum adinka saydulbaxri ugaarta badda waa idiin xalaal, waa malayga iyo wax allaale wixii badda ku nool waad ugaarsan kartaan, ama xaaji ahow ama ha ahaanin. wa طacaamuhu iyo طacaamkiisaba raashinkiisa mataacan raaxa xaal ay lakum adinka idiin tahay, iyo walisayaarati socotadii musaafirkaba. waxurima waxaa la xaaraantinimeeyey calaykum korkiina saydulbarri ugaarta bannaanka maa dumtum xuruman intaad xaramka daa'im ku tihiin. intaad xarman tihiin waa idinka mamnuuc ugaarta bannaanka. amaa midda badda dhib kuma laha, waad ugaarsan kartaan ama ahaada maxrumiin ama ha ahaanina. wattaquu llaaha allana ka cabsada
alladii allihii ilayh xaggiisa tuxsharuuna laydiin kulminaayey. allah xaggiisa laydiin kulminayo, xaggiisa aad u aruuraysaan. ilaahana ka baqa oo khayrkii wanaagga ku dadaala oo awaamirta alla fuliya. waxa laydinka reebaya ka hara, waxa laydin diraya sameeya, waxa ilaahay xuduuddiisa ha ku xadgudbina. wattaquu llaha alla ka cabsada alladii allihii ilayhi xaggiisa tuxsharuuna laydiin kulminaayey. xaggiisaa markaa loo noqonayaa. jacala allahu alkacbata albayta alxaraama qiyaaman linnaasi wabiاllahi الtawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.